waxa sidaan u dhacay waa rasaas waxay u dhaxaysana waa laba beel oo dega gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan dagaalkan maalintii shalay wuxuu ka dhacay Walaweyn ka waran jiingadaha iyo xaafadaha noocan oo kala ah oo ay degan yihiin kumanaan qof oo danyar ah oo Soomaaliyeed hadii sidaan oo kale qoryaha dabajeexa AK47 iyo qoryo noocaas noocyo lamidaba dhufays la kala galo dabadeedna la isku rido waxa dhacay wad maqlaysaan muuqaalkan intaan gudaha u galin waan ku sharaxin waxaan ka codsanaa in la wadaagto marka hore saaxiibadaada maalintii shalay dagaal ayaa ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan Walaweyn laba reer ama laba qabiil ayaa isku dagaashay dhul beereed cid kasta waxay doonaysaa dhulkaas inay qaadato dabadeed wada hadal kadib waa la isku fahmi waayay qoryaha ayaa la isku qaatay ilaa dad la kala dilo dadna la kala dhaawaco dad rayidna ay dhibaato ku soo gaarto sanadkan waa meeqo waa 20ka ama 24ka September 2023 Soomaaliya ka waran hadii laba qabiil qoryo noocan oo kale isku isticmaalayaan dabadeedna xaafado dhexdooda oo qoysas danyar ay degan yihiin hadii saan la isku gud baabi'inaya maxaa markan oo dhiman halkee soo mareena inteena ka soconaa inteena u soconaa Soomaaliya markan waxay aaday la dagaalanka kooxaha shabaabka in dalka oo dhan laga saaro laakiin qabiilo kale ayaa iyagu isku dagaalaya dhul iyo waxyaabo la dadka awoodda noocan haayo ee hubka iyo rasaasta noocan haayo ee xoog iyo waqti ku bixinaya in qabiilo hubkan ay u qaataan oo ay u dagaalamaan qabiil soo ma qurux badneen mana fiicneen in awooddaas la isku geeyo la dagaalanka al-shabaab soo ma fiicneen dadka xaafadahan ku dagaalamaya in la dhaxgeeyo kooxaha shabaabka goobaha ay haystaan si ay ugu saaraan maadaama awooddan ay isticmaalayaan waxa wanaagsaneed oo fiicneed rasaastan shacabka lagu dhaxbaabiinayo rasaasan iyagu naftooda micna darada u dilayaan iyagoo dalkooda u jihaatamaya iyagoo dalkooda iyo dadkooda baabiinaynin oo difaacay ma furumaha aadaan ma loogu faa'iideysta awoodda ay leeyihiin furumaha la geeyo dabadeedna dagaalka shabaabka lagu ciribtiro amaba iyagu ay ku dhintaan amaba ay ka difaacaan dalka oo ay xureeyaan dhul badan oo ay haystaan shabaabka tani waa fariin u baahan in la gaarsiiyo madaxda tani waa fariin u baahan dadka dagaalamay in la gaarsiiyo in 2023 qabiil dartiis sidaan la iskugu baabi'iyay bulshada dhexdeeda waliba waa dhul aan dhisneen oo xitaa hal dhagax ka taagneen ayaa sidaan la iskugu baabi'inaa dadkeena ma soo dhabo waxay soo marayaan meel fog waxay soo marayaan meel dhowr qarni kor laga imaaday waxaan rajo ka qabaa in la fahmo hadafka qofku uu dhimanayo iyo hadafka uu dagaalamayo ka hor inta uusan qorsheynin inuu dagaalamo muuqaalkan mar kale waxaan ka codsanaa in la wadaagto saaxiibadaada kale weerarkan maalintii shalay Walaweyn ka dhacay maanta saasaan colaad ayaa ka jirto laakiin waxaan rajo ka qabaa in dalka iyo dadku ay fahmaan in colaadu aysan waxba wanaag tarin laakiin kaliya ay ku dhintaan jeel dalku iyo dadka baan ficil lahaa mahadsanideen